السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada Soomaaliya Green channelkan waa kelisin wax kasto caafimaad aniga ka saayo. maanta banaankan jooga meelaha leerleerti meelaha lagu nasto iska imaada. marka buug ayaan dirsaday, buugaagtina akhriin waa jeclahay. marka waxaan ila qaybsanaa waxyaabaha akhriyo sida idinkan u baratiin. marka loo baahan yahay markasta caafimaadka iyo waxbarashada iyo waxyaabaha wanaagsan in la qaybsado qof kasta wuxuu ka sameeyay qaybsado way fiican tahay. marka maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo buugaagta online ka kumaandareystay. waxaan ka kumaandareystay labadan buug. waxaana ka soo gatay ikhrashop.com allaha. waa dukaan muslim ah oo online ah oo wax kasta lagu gado. inta kore waa ka soo saaray, waa ka soo sheegay inaan saliid ka gatay, saliid xabisooda ay gadaan oo timaha soo qorayso. waxaan kaloo ka gataa cilaanka lama marsado iyo waxaan ka gatay buugaag. buugaagtan waxaa qoran dad muslimiin ah oo dhaqaatirin ah. marka buugaanayta aan gatay waxaa la dhahaa La Sexualité en Islam. Faransiis waaye, ana Faransiiska ayaan si fiican u aqriyaa, si fiican aan aqaan. af Soomaaliga waan aqri karaa, waan qori karaa. waa labada af oo si fiican aan kuna aqri karo buug caadina si fiican uu ka saayo, qori karo waan aqri karaa. marka buugan waxaa la dhahaa La Sexualité en Islam. wuxuu ka hadlayaa buugan ninkii naagtiis qabo xalaashiisku waxay sameynayaan sida isku furfur lahaayeen. buugan aad iyo aad u fiican yahay. maanta dalwada uu yimaaday, marka waxaa ka baranaysaa waxyaabo badan oo fiican sida ninkii naagtiisa ay isku fahmi lahaayeen dhinaca sariirta. haddii aan Soomaalinahay maanta problem badan lagu qabaa. dad badan isku dagaalsan, dad badan sheegi karin dareenkooda wixii ayaga ay dareemayaan. dad badan qofka isku furi karin, dadkii way isku furfuri waayeen. naagtii xirxiran, ninkii xirxiran, laba dhagax waxba ma isku tarayso mogtahay. marka in la is furfuro qofkana qof uu kalsooni ku yahay inuu isku furo way fiican tahay oo wixiisu xafidayo oo dadkan uu sheegay taas muhiim waaye. marka buugan aan soo gatay, buugan waxaas macneynaa marka waxaan ka soo bartay insha Allah waan soo gudbi doonaa. ikhrashop aan ka helay. marka ikhrashop.com aan ka soo gatay La Sexualité en Islam. marka caafimaadkii waxyaabaha wanaagsan oo nolosheena ku saabsan ceeb ma in la barto. okay marka waa kaasa qofkii Faransiiska saa buug wuu gada karaa. ana buugaagta aan jeclahay inaan akhriyo. waxaan xiiseeyaa buugaagta taariikhda, buugaagta development personal, buugaagta waxyaabaha nolosha ku saabsan sidee kan loo sameeyaa, sidee kan loo hagaajiyaa. waxyaabahaas waa wax topic-yaal aan aad u jeclahay. marka buugan online ka dalbada inaan akhristo. ikhrashop aan ka dalbada, waa dukaanka muslimka aan sheegay. iyo buugan labaadna waa kana midka labaad aan dalbaday oo maanta yimid. midkan wuxuu ka hadlayaa le mariage tardif, problème et solution. midkan wuxuu ka hadlayaa arooska markii qofku ku daaho. waxaa dhici karta marxalado badan, waana waxyaabo dhacaan. maanta adduunka sidoo hore ma ahan, dad badan ayagoo weyn aroosayo. taasna waxaa geysa problem socio-economic, problem social, macro, problem dhaqaalo. waxyaabo badan ayaa jira oo qof kasta rabo asigoo afkiisa eber ahayn galo. taasna wuu ku saxsan yahay, waa fahmi karaa. waxyaabaha aniga naftirkeyga aan ku dadaalo. marka waa kaasa buugan waxaa qoray Rana Al-Sari. marka buugan wuxuu ku macneynaa sidee sameynaysaa problemka iyo solutionka ku jiro mariage tardifka. macnaha arooska markaa weynta aroosid haddii problemkaas soo gaaro iyo solutionkii waxyaabaha la sameyn lahaay wuxuu ku siinayaa consigne. waxaa ku jira waxyaabo oo dadka muslimiinta oo wax barteen ay waagaas sameey jireen, ama dadka isqaba lagu dhiirigelinayo, ama dadka diikoor waa asigoo weyn inuu galo. xaq ayaa leedahay farxadda qofkaaga eegta malahan, noloshaada adaa iska leh. qof kastana saacadiisa calafkiisu leeyahay. marka buugaanayta waxaan rabaa inaan ka barto habka loola dhaqmaayo marka qof kasta calafkiisu waaye. marka waqtiga xiroonaysid mariage tardif ayaa lahaa, problem and solution. waa kaasa buugan aan soo gatay. marka waxaa laga badanaa waxyaabo badan. dad iskala waaweyn example isqabaan, dad iskala yaryar, ama dad daadooda wax badan difference u dhexeyso. marka qaarkiis problem ay imaado siba hadduu qofka waayo aragnimo haysanin, hadduu qofka
oo mas-uuliyad badan lahayn ama dad waxaa jira ciyo weynaado qof waxaa jira weynaashada korka lagama weynaado iyo caqliga waa laga weynaadaa dad waxaa jira ayagoo yaryar maskaxda ka weynaanayo oo maturity waxa la leh dadna waxaa jira ayagoo weyn maskaxda weli ka yar marka waa kaasaa marka saas daraadeed waxay keentaa problem marka dadka aad iskala waaweyn yihiin ama aad iskala yaryar yihiin oon haddana qofku ay aragnimo iyo caqli iyo mas-uuliyad lahayn oo mas-uuliyadiisa kasoo baxayna problem waa marka waa kaasaa buuggan Iqra Shop ayaan ka keenay labadan buug ayaa rabay maanta inaan ila qaybsaday marka qofkii Faransiiska saayay iqrashop.com lahaa waxyaabo badan ku jira insha Allah buugaag kalena waa rabaa inaan ku maandareysto sida loo noqdo naagta adduunka ugu faraxda badan sida nolosha sosiaalka sida waxyaaba badan nolosha ku saabsan waa jeclahay inaan buugaag iyo wax ka aqriyo marka waa kaasaa saanay fiican yihiin buugaagtan haddii aad ka siisiin qof oo Soomaali buugaag Soomaali waxyaabaha nolosha ku saabsan waxyaabo fiican buugaag gadgado soo sheegaan buugaagtaada xiiseeya marka labadan buug ayaan online ka soo gatay waa kuwaas kan dadka Faransiiska saa aqri kartiin labadan buug kana aad ugu muhiimsan yahay dadka isku fahmi waaya dhinaca sariirta muhiim waaye because nolosha dhinaca kasta in laga hadlo oo la isku fahmayaa muhiim ah hadii kale waxuma soconayo waa kaasaa labadan buug ayaan rabay maanta inaan la qaybsado وما تنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.